kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawaneysaan waa channelkeena Runmal Media alaaba halkan waxa idinkugu soo gudbinaa xogihii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwa ugu saameynta badan Iran maanta waxay guul taariikhi ah ay ka gaartay dagaalkii maanta ka dhacay bariga dhexe xilli Israa'iil sidoo kale Mareykanka isgarabsanaya ay weerar subaxnimadii hore saaka ay ka fuliyeen Iran iyadoona Iran markaan ku hajabtay inay isticmaali doonto awoodeeda ciidan isla markaana ay bartilmaameedsan doonto saldhig kasta oo Mareykanka uu ku leeyahay qariidka Carabta hadaba sidee looga falceliyay weerarkii baana ee maanta ay Iran ay ku qaaday qaar kamid ah wadamada qariidka Carabta muuqaalkan ay idinkugu soo gudbin doona iyadoo sidoo kale Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay ka soo yeerideyso qeeladaan aad xoogana haddii ay tahay markii ugu horeysay ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan balelkana furasay ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahayna muuqaalkan oo shirgaray like inoo saar si oo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada aynu ku bilaabno Iran ayaa maanta guul la taaban karo waxay ka gaartay dagaalka maanta ee ka dhacay bariga dhexe waxayna ku hanjabtay inay isticmaali doonto dhammaan awoodaheeda ciidanka isla markaana ay ku sheegtay inay xaq ay u leedahay inay difaacato dalkeeda isla markaana ku tilmaantay in lagu soo qaaday weerar wuxuushnimo ah kaasoo ay ku sheegtay inuu ahaa mid lagu soo qaaday balse ay sheegtay in ay horay ay u ogeedo isla markaana ay difaac xoogan ay ka gashay waxaana sidoo kale dagaalka maanta ka dhacay bariga dhexe si aad ah ugu dhashay falcelin fara badan iyadoona qaar kamid ah wadamada qaliijka Carabta ay eedeen dusha ay ugu tuurayaan Iran halka wadamo kalena ay si aad ah u taageerayaan Iran isla markaana ay si wacan ay u weerarayaan wadamada Israa'iil sidoo kale Mareykanka oo markii horeba weerarka dhankooda ka soo bilowday iyadoo toddobaadadii la soo dhaafay fariimaha jabada hawada la isku marinayay ay ahaayeen oo kuwa u muuqda mid dagaal horseedi kara iyadoona ugu dambeyn maanta uu dagaal uu ka qarxay bariga dhexe xaaladuna ay tahay mid daqiiqada ka dambaysa ka sii daraysa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas ayaa waxa uu sheegay in wadankiisu isticmaali doono dhammaan awoodiisa ciidan isla markaana uusan u turi doonin fal kasta oo xadgudub ka ah ee lagu soo qaado wadankiisa war qoraal ayaa waxa lagu sheegay in uu taleefanka uu kula xiriiray dhigiisa dalalka ay kamid yihiin Sacuudiga Imaaraadka Qatar Kuwait Bahrain iyo Ciraaq isagoo u sheegay in Iran ay adeegsan doonto dhammaan awoodeeda difaaca cirka iyo midda military iyadoona sidoo kale ay xasuuq ba'an ay ka geysan doonto bariga dhexe ayna midda ay dhigto noqon doono midii ugu dambeysay oo ay la yaabaan Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil iyagoona sheegay in mar kale aysan ku soo fududaan doonin in weerar ay ku soo qaadaan Iran sarkaal Mareykan ah oo ka hadlay dhacdadii ugu dambeysay ee maanta ka dhacday bariga dhexe ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka weligiisa uusan la kulmin dhacdadii maanta ka dhacday bariga dhexe waxaana uu sheegay in isku mar inta la eeg uu iska horumaad uusan dhicin isla markaana ka dhacay saldhigiisa military ee bariga dhexe saldhiga Mareykanka ee Bahrain ayuu soo gaaray qasaarihii ugu badnaa kaasi oo adeegsan jireen ciidanka NATO ee mandiqada bariga dhexe ku sugan Iran ayaa tani waxay u tahay guul dhameystiran oo taariikhi ah maadaama ay taabatay mid kamid ah xarumihii ugu muhiimsanaa ee Mareykanka uu ku leeyahay wadamada qaliijka iyadoona weerarka Iran ay isku difaacayso inay sii kordhiyaan iyadoona sidoo kale Iran wacad ku martay inay kordhinayso weerarada aan gambashada lahayn isla markaana wadamada qaliijka Carabta ee loo soo mariyo in weerar lagu soo qaado in Iran ay cagta marin doonaan iyagoona sheegay in wadamada qaliijka Carabta ee qaarkood ay yihiin kuwa ka soo horjeeda Iran isla markaana saldhigyada militariga ee ku leeyahay Mareykanka uu weeraro uu ku soo qaado marka uu doonayo inuu weeraro Iran halka wadamo qaarkood iska diideen in gantaalada loo soo mariyo wadankooda warar hordhac ah ayaa waxay sheegayaan in mid kamid ah gantaalada Iran uu si toos ah ugu dhacay saldhigga military oo NATO ku leedahay Kuwait waxaana ka dhashay burbur balaaran ilaa ay hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay NATO ama dawladda Kuwait ee ku aadan qasaaraha rasmiga ee ka dhashay iyadoona wali aan la cadeynin inkastoo naftirkeeda Iran aysan faahfaahin ka bixinin ee weerarkaasi balse ay u tahay guul taariikhi ah oo la taaban karo maadaama ay bartilmaameysatay goobo muhiim u ahaa saldhigyada ugu yaala Mareykanka oo markii horeba duulaanka uu ku soo qaadi jiray waxaa la falanqeynaya ama dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in Iran maanta ay u soo hooyaday guul taariikhi ah maadaama ay bartilmaameysatay saldhig uu leeyahay dalka Mareykanka iyadoo horey ee weerarkaasi ay u fuliyeen Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka oo isgarabsanaya
wasiirka arrimaha dibadda ee Norway ayaa waxa uu sheegay in duqeymihii maanta lagu qaaday Iran oo ay qaadeen Israa'iil sidoo kale Mareykanka uu yahay mid wuxuushnimo ah isla markaana uu ku tilmaamay mid lagu gardarooday Iran halka wadamada ee muslimiinta ee Carabta ahna ay Iran ay ku eedeynayaan jawaabtii ay bixisay isla markaana ay taageerayaan Israa'iil sidoo kale Mareykanka oo weerarka marka hore ku qaaday Iran balse Iran ay xaq u leedahay inay isdifaacdo isla markaana ay argoosato haddii wadankeeda wax ka madax banaan lagu sameeyo. waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway isagoo tilmaamay in xal diblomaasiyadeed oo degdeg ah loo baahan yahay in laga dhex abuuro bariga dhexe haddii kale halkaasi ay qalalaaso horle ay ka dhici karto waxaana uu ku sheegay hadalkaasi fariin email ah uu u diray wakaalada wararka AFP isagoona sheegay in weerarka Israa'iil ay qaaday uu ka madax banaan yahay uusan buuxinin shuruudaha sharciga ee caalamka. markana waxaan isla soo gaarnay gabagabadii xaaladda guud ee bariga Afrika iyo sidoo kale sida looga falceliyay ayaa markaan isla eegi doonaa. dagaalka ayaa ku fiday dhammaan dalalka gobolka kadib markii jawaabo degdeg ah ay bixisay Iran oo beegsatay saldhigga Mareykanka ee dalalka Khaliijka gaar ahaan wadamada Qatar, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka iyo sidoo kale Bahrain halkaasi oo laga maqlay qaraxyo xoogan oo ka dhashay khasaare kala duwan ee isugu jira dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay xaq u leedahay in isdifaacdo haddii Iran ay ku soo qaado weerar isla markaana ay sheegtay in ciidankeedii iyo sidoo kale hawadeedii ay qalabeen doonto isla markaana ay iska difaaci doonaan weerar kasta oo kaga imaanaya dhanka Iran iyadoona sheegtay in gantaalo lagu soo tuuray ay ka hortageen ciidanka difaaca ee cirka. dhinaca kalena Sacuudiga ayaa dhankiisa si adag u cambaareeyay weerarka Iran ay ku qaaday dalkaasi isagoona luuqad adag ku yiri marna ma ogolaan doono in lagu xadgudbo madax banaanida dalkeena. Qatar ayaa iyana ka jawaabtay weerarkan waxayna ku sheegtay mid wuxuushnimo ah isla markaana ay ku tilmaantay haddii Iran ay talaabo u soo qaado dalka Qatar iska difaaci doonaan inkastoo wadamada Khaliijka Carabta aysan ku filneen inay iska difaacaan Iran maadaama Iran xilligaani ay si adag difaac adag ay ugu jirto Israa'iil iyo sidoo kale Mareykanka isla markaana Iran ay tahay wadanka kaliya ee sida adag ugu dagaalama ee madax banaanidiisa. wadamada qaar ee dariska la ah Iran ayaa ah kuwo ay ka soo horjeeda iyagoo isla ah wadan muslimiin ah haddana waxa ay si adag ay u taageerayaan dagaalka ee sida tooska ah loogu soo qaadayo Iran iyadoona arintaasi u muuqato mid daandaansi ah. wixii xoogay ku soo kordhana muuqaaladeena xiga ay idinku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay ugu soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkana furasi ku soo gaara muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahay muuqaalkan oo share garay laakiin oo saarsi oo gaar asxaab badan oo ku maasantahay daawashadaada.